Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti habboon daawadayaal, halkani waa Hakis Channel Burco xaruntiisa guud ee gobolka Togdheer. Daawadayaasheeda waxaad nooga barateen sheekooyin, barnaamijyo kala duwan. Maanta haddaba maxaan idin wadnaa? Maanta waxaan idin wadnaa daawada sheekooyinka ugu la yaabsanayd. Ha iloowin daawada inaad like saarto, sidoo kale aad share garayso, commentigana nagu reebto fariinta nooca aad qabto, sidoo kale halka subscribe annagala walaacina. waxaan yeedhi doonaa martida koowaad ee barnaamijka maanta, Cabdirasaaq Aadan Cabdullaahi. waa mid ka mid ah bahda Hakis ee xagga multimedia ama social media. Cabdirasaaq wuxuu inoo wadaa sheeko runtii annaga naga qoslisay, markii annaga naga qoslisayna aanu jeclaanay inaanu idin soo gudbino. aad iyo aad oo maadsan saaxiib, waan dhawahay. Cabdirasaaq, xagga sheekooyinka waad isku fiicantihiin. waxaa jirta sheeko maado in badan aad nooga sheekaysay, runtii aan aniguna aad uga helo, bal maanta aynu bulshada la wadaagno. haa saaxiib, sheekada soo jirtaa waan ka sheeko doonaa insha Allah. saaxiib, sheekadaas waxay ku dhacday 4 nin oo walaala ah. kadibna aabahood ayaa dhintay. aabahood markuu dhintay 4 nin oo walaalaha laba xabaash way qabteen oo ku hadheen. waliin xabaash si ilaalay, xabaash waxa la keenay biyo, waxa la keenay biyo iyo alaabta la gelaya dad si ilaalay si aan loo qaadan daba loo qaldamin. kadibna labadii kale waxay odayga idinku masaajidka geeyo ku soo tukada, masaajidka geeyo ku soo tukada. kadibna markii masaajidka la keenay, waxaan la keenay masaajidda Hargeysa, gaar ahaan masaajidka markiiska loo yaqaano ee kulanka islaamka lagu qabto. ka markii la keenay waxa markii lagu tukaday Allahu Akbar la dhameeyay, meeshan waxa la keenay midad fara badan. marka masaajidda waxa la keenay midad fara badan oo masaajidkii ugu weynaa masaajidkii weynaa Hargeysa waxa la keenay marka sidee bulshada u badan jamac badan oo helo qofka islaamka dhint. marka waa la keenay, kadibna iyaguna markii la keenay lagu tukaday salaad la dhameeyay dadka darara ay shoodiga ma qaadina islaam bil badan iska taalo iska taalo oo baarkeedana iska jirtay wadana gariyo tishow loo go'day islaam qaatay islaam bil badan show. haye kadibna waxay geeyeen xabaashi. haye kadibna labada iska qadiraysan oo rag iska soo marqaamay aan iska soo jimugeey show. xaroodhan ma eegin ba show. haye kadibna kii maxaabiis joogay ilka galay ayaa qabtay. labada saalasoo loo dhibaaday qof labana xaq maqlaba oo soo yiri samir huri aradu mid ka soo dhacay kiiba wadi xaq horaayay aradu mid ka soo dhacay oo mid ka dhacay markaas soo yiri oo maxaad aragtay markaas soo yiri noodigu wada burbur noqday. markaas soo yiri warna wallahi naguma dhicin oo caadi soo oday marxag daa barartay waalidkii kuma caadayn ma adiga ma suuq kala soo dhacdeen. marka aabahood way yaqaaneen oday iska daawday iska dafna sheegsiga wada steedkii gaadhay lismay orada ma xidhamay suude hada waxana burbur hada waxayna soo qabtay ilmu naxayir adiga ma baray adiga suude ani ma wallahi blay ma barayne inaan hadaan qaldamay buuri waxaan islaamala oo islaanay hadaan qaldamay كل مدة عصرية تاني كنيه تاني بس أنت سكاسة تخورنا ما أظن لا مش أظن لقى أسي تقول أظن ما قاعدني يعني ستراس الكيسلام كا أباها يأخل تمايو سلال لبودي هي الأساسة وسكاسة ده بيجوا أظن رتشي نهاية تودي عسل كم بدي كنا متعسين وسادة كم سكاسة لكن كنا متعسين. Cabdirasaaq Aadan Cabdullaahi waa mid ka mid ah bahda Hakis xagga social media. wuxuu noo soo tabinayay sheeko aan annagu ka codsanay inuu noo sii daayo. aad ayaad mahadsantay Cabdirasaaq Aadan Cabdullaahi saaxiib qaali. daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa bartayada YouTube-ka aanu ku leenahay ee Hakis Burco Channel. ha iloowin daawada inaad subscribe saarto, like siiso, share garaysana. tan iyo kulanti dambe sheeko dambe xiiso leh. fi amaanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.